ninkii ayaa daabkii barafka ka nadiifiyey giiga afkana si weyn u furay isagoo arkay ilig xanuun daran leh maadaama uusan dhakhtar jirin go'aan geesinimo leh buu qaatay wuu iska taagay daabka si fiican ayuu u qabtay dhagaxna kor buu ka soo qaaday oo xoog ugu dhuftay xanuunkii daran ayaa miir beel ka dhigay markuu soo toosay ayuu furfuray sanduuqyadii isagoo rajaynaya inuu wax faa'iido leh ka helo sanduuqii koowaad wuxuu ka helay cajalado kan labaad kubad voleybal ah kan saddexaad kabaha barafka oo uu ku jebin karo qumbaha kadib wuxuu helay dhar dumareed wuxuu jaray hoosta oo uga dhigtay shabaag uu ku kalluumeeyo laakiin markuu doonayay inuu furo sanduuqii ugu dambeeyey wuu hakaday halkii uu furi lahaa wuxuu u daayay sidii sabab uu nolol ugu sii jiro goobtii uu shabaaga ku tijaabiyey wuxuu qabtay kalluun yar laakiin urkii xoogga badnaa ma uusan awoodin inuu cuno wuxuu isku dayay inuu dab shito isagoo qoryo isku xoqaya balse gacanta ayuu iska gooyey cadho darteed wuxuu burburiyey wax walba oo agtiisa yaalay markuu degay wuxuu arkay farihii dhiigga lahaa oo ku dhacay kubaddii wuxuu ku sawiray wejiyo magacna wuxuu u bixiyey wilson agtiisa ayuu dabshididda ku sii waday waxaa laga yaabaa inuu kelinimo darteed ula hadli jiray ugu dambayn qoryihii ayaa qiiq bilaabay dabna wuu helay habeenkaas wuxuu shiday dab weyn oo xeebta ah cunayna carab macaan wilson wuxuu u noqday saaxiibkiisii cusub 8 sano ayaa si dhaqso ah u dhaaftay ninkii wuxuu si fiican ula qabsaday nolosha jasiiradda kalluun wuu qaban karayey dab wuu shidi karayey laakiin kelinimadu weli way ku cuslay maalin ayuu arkay bir weyn oo badda dhex sabaynaysa dabaysha ayuu u fiirsaday wuxuuna go'aansaday inuu ka sameeyo doon uu ku baxsado wuxuu jaray geedo harag geedkana qalajiyey si uu xadhig uga sameeyo xitaa cajaladihii ayuu kala furfuray si uu xarga uga helo laakiin weli kama uusan helin intii loo baahnaa indhihiisu waxay qabteen wilson laakiin saaxiibkiis kumuu bedeli karin xadhig isagoo niyad jabsan ayuu fuulay buurtii ugu sarraysay wuxuuna ka soo furay xadhigii uu mar doonayay inuu isku dilo xadhigaas ayuu u adeegsaday doonta wuxuu labistay wilson dhagax buu fariin uga xardhay wilsonna wuxuu ku xiray hortiisa doonta sanduuqii uusan 8 sano furi jirina wuu watay siduu u dhoofay ma uusan ka baqan mawjadaha wuxuu xitaa ku dhiirigelinayay wilson mawjadihii xoogga lahaa markay yimaadeen wuxuu dabciyey xargihii oo uu furay shiraacyadii doondu way badbaaday markay roobku da'een biyihii ayuu ku guray qolof qumbaha wuxuuna wilson tusay kalluunkii uu qabtay laakiin habeenkii dambe duufaan kale ayaa timaaday shiraacii way ka goday ninkii wuxuu si adag u qabsaday wilson doondu si aan jihayn lahayn bay u dhacday markuu soo toosay wilson waxaa qaaday baddii si deg deg ah buu ugu booday badda isaga daba ordaya wilson laakiin intuu u sii dabadabaalanayay ayuu ka sii fogaanayay doomaha ugu dambayn wuu ka quustay oo wuxuu ku noqday doontii wilson wuu lumay ninkuna shucuurtii nolol jeclaysiga ayuu la lumay laakiin markaas ayay markab muuqday wuu istaagay gacmaha kor ayuu u taagay intii xoog ugu dambaysay wuu badbaaday bil kadib george wuxuu ku noqday gurigii laakiin 8 sano oo uu godoon ahaa kadib gabadhii uu habeen iyo maalin u hanweynaa way guursatay xafladdii soo dhoweynta ee shirkaddiisu u samaysay xataa cunnadii badda wax dhadhan ah ma lahayn dunida caadiga ah markuu ku noqday isagoo sawirkeeda ku fiirinaya saacaddiisa jeebka wuxuu galay fikir dheer ugu dambayn wuxuu iibsaday kubad voleybal ah oo isla noocii ahayd wuxuuna qaaday sanduuqii uu 8 sano uusan furin wuxuu u raacay ciwaankii ku qornaa wuxuuna uga tegey warqad mahadnaq ah wuxuu ka tegey isagoo aan ogeyn waxaa ku jiray telefoon satellite ah oo biyuhu karin qoraxda ku dallacma iskuna dallaca nasiibku wuxuu badbaadadiisa u saaray meel uu gacantiisa ku hayay laakiin weligiis ma uusan furin waxaa laga yaabaa in noloshu sidaas tahay had iyo jeer waxaa jiri doona murugo qalbi jab iyo wax aan la dhammaystiri karin